waxaan dheeraanay gobolka cayn ma moodan in dib loo hungureynayo ha ku dhimanina meesha nacasyadu galeen bidhaqaatayaasha bismillaahi raxmaani raxiim soomaalidu waxay ku maamaadaa walla wixii ka qabsaday cabsiyo lagii midhaa cadda muusan baayeen war somalilan wixii kaga dhacay gobolka cadhiya buwadla way og tahay madaafiic hadday tahay artillery hadday tahay bm hadday tahay wax allaale iyo waxaanu haynay baanu isla dhacnay waana la ogaa dhirbaaxooyinkii ku dhacay janan hebel baanu bedelay janan hebel baanu bedelay janan hebel dambaanu bedelay war midhaa tii weli uma sawrowrowlidin wuxuu yidhi war maanigaan roorayn buu yidhi mise ribay ka soo dhacdii yaa meeshii runba sheegay wareedhe anigu waan la yabalay qofka idhaha somalilan baan ka socdaayo buwadla soonihiisa soo aadaya iyo gobolka cayn dee waa wixii unbaa yaalla naartii unbaa taalla haddaad soo aadashaan waxa wallaahi oo bilaahi oo tallaahaya tuulo kamid a haddii lagu leeyahay idinku sheego wixii ka dhacay waxa ka dhaca wixii hore u dhacay waxaana ka darnaanaysa boqol jeer waxaana dheeraanay gobolka cayn ma moodan in dib loo hungureynayo ha ku dhimanina meesha nacasyadu galeen bidhaqaatayaasha bismillaahi raxmaani raxiim ummadda soomaaliyeed ee aan snm ku jirin waxaanu u sheegaynaa waxaa beryahan laysdhex marinayay oo lalahaa diiwaangelin bay keenayaan gobolka cayn oo maxaa naga dhexeeya siday u keeni karaan nimanka dhuunaqaatayaasha ee wareegaya dhallinyarada ah ee meelaha iyaga u yaqaanaan inay maamul yihiin ee hadlay ummadda soomaaliyeed ee yidhi cayn gobolka cayn baanu keenaynaa doorashada ummadda soomaaliyeed waa ka xaal baanu ka siinaynaa hadalkooda gobolka cayn xaal baanu ka siinaynaa wax ka jiraa ma jiraan wax la keenayaa ma jiraan wax imaanayaa ma jiraan wax qorulugud iyo magaalooyinkooda soo dhaafayaa ma jiraan ummadda soomaaliyeed saasaanu u sheegaynaa gobolka cayn waxgaradkiisa iyo ragga maamulkiisa haya iyo ragga u taliya waxay ka midaysan yihiin inaya soo dhaafin qorulugud iyo muraayadaha meesha la yidhaahdo inaysan imaan karin gobolkaa yaanu ummadda u sheegaynaa sidaasaanu iska ognahay lama imaan karo waxba lama lihin somalilan lama nihin waqooyi lama nihin koonfur baanu ku xidhannahay dowladda federaalka ee soomaaliyeed baana xukunta iyadaanu mar walba amarka ka qaadanaynaa